دولة هديسن وحدلين دولة من نقطة وعنا wanaagsan daawadayaal muxuu yahay ninka laga qabtay xalay Hargeysa ee ay ciidamada huwantu soo dirsadeen ay Soomaaliland soo dirsadeen ciidamada huwanta ayaa ku yiri Hargeysa tag hawlgalna noo fuli dhulbahanta uu ka yahay ma jeerteenba ma dhulbahanta uu yahay daarood uu ka yahay waxa weey saaxiibayaal xogtan oo dhameystiran waxaan idin la wadaagi doonaa daqiiqadaha soo socda fadlan waxaan idin ka codsanayaa waxa weey waxaan idin ka codsanayaa muuqaalkan si share gareysiin adiguna wixii fikirkaaga xag hoose nagu la wadaagtid waay xalay fiidnimadii waxa weey nin ciidamada huwanta ka tirsan ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa dadku inta badan waxay amaanayaan shaqada uu hayo taliyaha cusub ee ciidamada sirdoonka NIA oo xalay wiil lagu magacaabo Cawil Daarood Yuusuf magaalada Hargeysa ka qabtay haddaba Cawil Daarood Yuusuf waxa loo qabtay si magaranaysa habaysan baa loo qabtay waxa loo qabtay si ay ku dheehan tahay ciidamada sirdoonku ay magaranaysa waxayna ku amaanan yihiin markii ay qabanayeen ninka in aqoon saa'idi ay ka muuqato waxa weey dad badan ayaa ku amaanaya taliyaha cusub ee sirdoonka ee Soomaaliland in uu shaqo adag imika hayo marka hore waxa ay xasuusinayaan waxa weey magaalada Laascaanood waxay ahayd tuulo waxa ka samxad badan magaalada Wajaale oo aynu garanayno magaalo ganacsiyeed inay tahay waxa weey Soomaaliland iyo magaranaysa gobolka Sool ee argagixisadu haysato jidkii isku xidhay ama wadadii isku xidhaysay wuu xidhan yahay waxna uma gali karaan Laascaanood huwanta waxna kama soo bixi karaan way xiranta wadadaas haddaba magaalada Laascaanood waxa weey waxa ka imanaya dadkii bay cidhidhi ku dareemay waa magaalo bilaa samxada waa magaalo intii iskareensiyay intii wada dhalatay ay wada joogan haddaba ciidamada huwanta qaar badan wiilkan oo la qabtay xalay iyo qaar badan oo kalaba waa lagu daba joogaa oo Soomaaliland ku sugan ciidamada sirdoonkuna xeeb ilaa bari ilaa bad waa shaqeynayaan aad bay u shaqeynayaan shaqadooda way ku amaanan yihiin haddaba wiilkan ka hadlaya waa wiilkan muxuu yahay Cawil Daarood Yuusuf Cawil Daarood Yuusuf waxa uu ahaa nin ka dagaalamayay magaalada Laascaanood barigeeda 25 bishii August 2023 markii ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay yiraahdeen waanu ka awood badanay kamay awood badanay wuxuu ahaa ciidamadii dhintay ee meydka markaa meeytida ahaa nimankii wuxuu kamid ahaa wuxuu ahaa waliba isagu ninkii basbaaska qofka dhintay afka kaga shubay warbiye ugu qaba markuu markii xabadii ku dhacday saareen gaarigii ninkii basbaaska afka kaga qabanayay ayuu ahaa Cawil Daarood Yuusuf oo xalay lagu qabtay magaalada Hargeysa Cawil lama garanayo wali sababta uu u yimid magaalada Hargeysa meel calanka Soomaaliland uu ka taagan yahay isagoo oo hore ula dagaalamay magaalada Laascaanood kula dagaalamay Soomaaliland haddaba muxuu islaha lagu garamaayo muxuu islaha magaranaysa aqoon dheeraad lagu yeelamayo ciidamada sirdoonku qabanayaan waxa uu mooday maqaaxidii magaalada Laascaanood ee cid walba iska soo galeysay ee argagixis iska soo galeysay ee magaranaysa dadka amniga khalkhalinaya iyo dadkii madax duubashada dilay ku geysan jiray sidii ay iska soo gali jireen Laascaanood ayuu mooday Hargeysa isaguna iska soo galay kulka ciidamada Soomaaliland ayaa far iyo suul ku qabtay laadlaadiyay markaa qaatay iyagu ilaa hadda oo ay ka soo wareegtay 24 saacadood waxa uu ku jiraa baaritaan Cawil Daarood Yuusuf oo xalay lagu qabtay magaalada Hargeysa siday haddaba ila wareedyo lagu kalsoon yahay ay noo sheegeen Cawil waxa uu ka tirsanaa ciidamada huwanta 8 bilood ee ugu dambeysay sidaas la mid ah maanta magaalada Wajaale waxa lagu qabtay iyaduna gabadh markii dambe isna saxday oo tiri anigu waan waaranahay
miirkayguna ma qabo waxa weeye waan iska socday saasan Somaliland ku soo galay waxa weeye waxa soo badanaya dadka markay Somaliland soo galaan su'aal ahaan dadkii taageersanaa ciidamada huwanta ama shacabkii huwanta taageersanaa intay Somaliland dhuumaalaysi kaga adeegtahay siraahdaan su'aal ahaan wajaalo kale ka adeeganayaan Hargeyso kale ka adeeganayaan Burco kale ka adeeganayaan saasay tahay markii qacanta lagu dhigo waxa ay leeyihiin annagu ma nihin dad miirkaygu joogo waxaanu nahay dad xanuunsanaya ayaanu nahay ee waxaanu ka codsanaa shacabka sharafta badan ee Somaliland inayna sii daayaan magaalada Laascaanood waxa weeye adeeg la'aan baa ka jirta haafka bariiski waxa weeye dadka maanta gabadha lagu qabtay magaalada Wajaale waxa weeye haafka bariiska ay u soo doonatay Wajaale afar laabkeed buu ka marayaa magaalada Laascaanood ka iibsaado siraado ay ka iibsaado ay istiraado hadaba aan sheekadayda u soo noqdo Cawi Daarood Yuusuf waa nin sarkaala oo ka tirsanaa ciidamada huwanta waxaana xalay lagu qabtay magaalada Hargeysa oo ciidamada sirdoonka ayaa qabtay NI baa qabatay waxa weeye ilaa hadda waxa ku socda baaritaan hadaba anigu waxaan la yaabay war qof bini'aadan oo disahaysiin oo gurigaaga kula dagaalantay oo iiga baxtiri waayahay sidee baad ugu tagaysaa guri aad adigu isagu u leeyahay sidee baad oranaysaa waan ku ugu tagayaa waan ka soo adeeganayaa ma garanaysaa cuntooyinka aan anigu cuni lahaa baan kaga soo adeeganayaa dib la'aan iyo amni iyo ma garanaysaa ayaan kaga soo adeeganayaa waxa weeye ciidamada huwantii way isi soo tarayaan kuwa badan oo ina ciidamada sirdoonku ayna shaacina way qabteen shaqadaana waxaan ku hambalyeeynaa ninka ciidamada sirdoonka dhawaan loo magacaabay oo isagu runtii aad shaqadiisa uga soo dhalaalay waxaan leeyahay haddii dalku amni fiican ilaahay amniga iimaanka inoo magaranaysaa inoo siyaasho waxa weeye dalku waxa weeye amnigu u baahan yahay ciidamada sirdoonkuna shaqo adag bay hayaan waan ku hambalyeeynaa way saaxiibeel ninka huwantaana xalay waa la qabtay waan hambalyeeynaa waxa weeye adduun weynaha marka nin amniga dalka ku khalkhal gelinaya marka la qabto ama shaqo wanaagsan aan dalkan u ahayn marka la qabto waxa weeye waa la dilaa naftana waa la dhaafiyaa xaq buuna u yeeshay ninkii maanta ciidamada Somaliland oo naftu ka sii baxaso basbaasa ugu shubay maanta in la dilo xaq baa loogu leeyahay Somaliland sideedii kii ay Wajaale ku qabatay ay 24 saacadood haysay sii daayeen hadday ka dhigaan Somaliland dabaaniga taageerideeda lagu mooga waayo cid kasto ku cadawaba intay qabtaan bay sii deynayaan qolka waan hambalyeeynaa ninka ciidamada sirdoonka ciidamada Jamhuuriyadda Somaliland waxaan leeyahay ninkaasi wixii uu xaq u yeeshay hal mariyo qof meeytiya oo nafti ka dhacaso oo laa ilaaha illa Allah ugu dambeysay taagan ayuu basbaas afka kaga shubay